السلام عليكم صاحبي الكل جيمبا meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV wararkaan idin hayno xilligani waxa kamid ah faahfaahinadii ugu dambeeyay qaraxyo xooggan oo lagu weeraray hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho iyo rag hubaysan oo intaasi kadib gudaha u galay hoteelka qasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarka waxaana kamid ah dadka ay waxyeeladu soo gaartay saraakiil kamid ah ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa waxaad sidoo kale daawan doontaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si loo dhaariyo qodobadaasi iyo wixii kale ee nagu soo kordhay inta aynu ku guda jirno faahfaahinta wararkeena ayaa daawan doontaan diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale saaxiibayaal halkani waa Garaa TV xasuusna hadii ay ku joogto waqti salaadeed soo tuko waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada videogan aynu ku bilowno xaalka magaalada Muqdisho ee qaraxyo ismiidaamin ayaa salaadii maqrib kadib waxa lagu weeraray hoteelka la yiraahdo Xayaad oo ku yaala agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxyada kadib hoteelkaasi gudaha u galay rag hubaysan kuwaasi oo gudaha hoteelka ka bilaabay toogasho toos ah oo ay ku sameynayeen dadkii ku sugnaa gudaha hoteelkaasi ilaa 4 qarax oo laga maqlay inta badan degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu weeraray hoteelka waxaana la xaqiijiyay dhammaantoodba inay ahaayeen qaraxyo ismiidaamina oo iskugu jiray gawaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa iyo kuwa naftooda haligayaal oo isku soo rakibay qaraxyadu waxay ahaayeen kuwa kala dambeeyay daqiiqada kooban iyadoo lagu bilaabay gaari laga soo buuxshay walxaha qaraxa oo lagu dhiftay hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho qaraxyada kadib waxa gudaha u galay hoteelka Xayaad rag aad u hubaysan si ay toogasho kaga bilaabaan gudaha hoteelkaasi iyaga oo beegsanayay qof waliba oo ku sugnaa gudaha hoteelkaasi dadka ku sugnaa hoteelka markii weerarku qabsaday ayaa iskugu jiray mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya saraakiil ciidan odayaal dhaqameed iyo dad kale oo kamid ah bulshada ragga hubaysan oo ilaa hadda la xaqiijin tirakoobkooda saxda ah ayaana gudaha hoteelka ka bilaabay inay si toos ah u beegsadaan rasaasna ula dhacaan dadkii ku sugnaa ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa si degdeg ah ku gaaray goobta ay waxyeeladu ka bilaabatay waxaana ay durba guda galeen inay la dagaalamaan kooxda gudaha u gashay hoteelka si ay u soo afjaraan ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo Haramcad ayaa gudaha u galay hotel Xayaad waxaana ay shaqadooda koobaad ka bilaabeen inay soo badbaadiyaan dadka ku sugan gudaha hoteelka sidoo kalena ay la dagaalamaan kooxda gudaha gashay si ay u soo afjaraan weerarkooda gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa goor dambe loo fasaxay hoteelka si ay u bilaabaan daadguraynta dadka ay waxyeeladu soo gaartay ee daadsanaa hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho inkastoo goobta ay ka socotay rasaas xooggan oo ay isweydaarsanayeen kooxda weerarka qaaday iyo ciidamada ammaanka qasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarka hase ahaatee ilaa hadda lama hayo tirakoob sax ah oo tilmaamaya qasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkaasi maadaama warbaahinta iyo dadka kale ee faraha maran aanay suuragal u ahayn inay ka agdhawaadaan goobtani ay ka socoto waxyeelada ba'an balse ilaa hadda dad fara ku tirisa ayaa la xaqiijiyay geeridooda waxaana aad u badan xaddiga dadka halkaasi ay ka soo badbaadiyeen ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay waxyeelo soo gaadhay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya kuwaasi oo naftooda u biimeeyay si ay u soo badbaadiyaan dadka ku xayirmay
gudaha hotel xayaad ee ay beegsanayeen kooxda manaxayaasha ah ee gudaha u galay hoteelka. inkastoo ay dad ku dhinteen gudaha hoteelka, haddana ma jiro ilaa iyo hadda qof mas-uul ah ama magaca leh oo si gaara loo xaqiijin karo inuu ku geeriyooday, maadaama halkaasi aanay warbaahinta iyo dadka macluumaadka u saaxiibka inay soo wariyaan aysan tegi karaynin. waxyeelada dhaawaca ee la xaqiijiyeyse waxaa ka mid ah taliyihii nise ee qeybta gobolka banaadir Muxyidiin Warbac, kaasi oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarkaasi lagu qaaday hotel xayaad ee magaalada Muqdisho. sargaal kale oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya isagana lagu magacaabo Mahad Cabdi Cumar Korow ayaa isagana dhaawac uu kasoo gaaray weerarkaasi lagu qaaday hotel xayaad ee magaalada Muqdisho. ciidamada goobtaasi tegay ee geesiyaasha ah ayaa sameeyay dadaal nafhurnimo ah oo ay ku badbaadinayeen dadka ku xayirmay gudaha hoteelka. dadka la soo badbaadiyay waxaa ka mid ah Faadima Umulkhayr iyo Cabdiweli oo ahaa ubada saddexa oo hooyadood ay kaga tagtay gudaha hoteelka, kuwaasi oo si weyn u qabsaday tan iyo markii uu weerar ku bilowday baraha bulshada. laakiinse goor dambe la xaqiijiyey in hooyadood oo bannaanka ku balanbalaysay markii horena magaalka ka aaday ay dib u heshay ubadkeeda kadib markii ay soo badbaadiyeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa hadda weli kula dagaalamaya gudaha hoteelka kooxdii weerarka soo qaaday ee gudaha u gashay hoteelkaasi. geesta kalena kooxda Al-Shabaab ayaa si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada lagu weeraray hoteelka iyo weerarka tooska ah ee ka socda hoteelka xayaad ee magaalada Muqdisho. bayaan kooban oo ay baahisay warbaahinta taageerta kooxda ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen hotel xayaad, kuwaasi oo toogasho toosa ku bilaabay dadkii ku sugnaa gudaha hoteelkaasi oo u badnaa sida Al-Shabaabku ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale warka Al-Shabaab waxaa lagu sheegay in qarax kale ay saraakiil booliis kula beegsadeen agagaarka xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo gurmad ahaan ugu socday goobta uu qaraxu ka dhacay. halkaasina waxaa ka dhashay bay yidhaahdeen khasaare soo gaaray ciidanka booliiska ee dowladda Soomaaliya. wixii warar ee kusoo kordha weerarkani iyo khasaaraha ka dhasha tirakoobkiisa halkani ayaad isha ku hayn doontaan. innaguna waxaynu u taaganahay in aan idinka haqabtirno baahida aad u qabtaan in aad ogaataan xaalka caasimadda waddanka ee Muqdisho. waa hagaag saaxiibayaal, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa subaxnimada Sabtiga yeelanaya kulan lagu dhaarinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ayaa marka la dhaariyo waxa ka dambeeya wuxuu xubin ka noqonaya golaha shacabka. kursigan ayaa ah xubin sharafeed uu ku helay xilka madaxweynaha ee dalka oo uu soo qabtay. sidoo kale kulanka golaha shacabka ayaa lagu dhaarinayaa xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka sida lagu sheegay ajandaha kulanka. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalaya doorashada guddoonka guddiga golaha shacabka, kuwaasi oo gaaraya 14 guddi. laba habeen ka hore guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa soo saaray liiska 14 guddi ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo loo kala qaybiyay, kuwaasi oo dooranaya guddoonkooda kuna jirta ajandaha kulanka ballaaran ee golaha shacabku ay yeelanayaan. laba habeen ka hor guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa soo saaray liiska 14 guddi oo ka socda golaha shacabka, kuwaasi oo la kala qaybiyay isla markaana dooranaya guddoomiyaashooda kulankani ay yeelanayaan baarlamaanka.
wararkii aan idiin haynay waa naga intaas nabad iyo warsan.